war degdeg ah ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo isdaba joog ah ka waday buraleyda calmiskaad ee gobolka bari ayaa howlgalladii ugu dambeeyey 48 saac ee lasoo dhaafay buraha calmiskaad ee gobolka bari ka dhacay waxa ay dhigta dhiigga ugu dareen firxad ka tirsan maleeshiyaadka kooxihii halkaasi ku dhuumaalaysanayay iyagoo dhinaca kale kala wareegay deegaano iyo godad muhiim u ah kooxdan oo muddooyinkii ugu dambeeyey gabaad ay ka dhiganaysay waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey howlgallada buraha calmiskaad ka soconaya gulaha isdaba joogga ee ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland ay gaareen iyo sidoo kale sanad military oo la sheegay in ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland ay gacanta ku dhigay soo dhowo daawade muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee kommentiga ku dhiibo haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay haddii aad nala joogina nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada aynu markasta halkan kula wadaagno wararkii warbixinada guud ahaan soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga buraleyda calmiskaad ee gobolka bari oo muddo ku dhow 2 sano uu ka socdo howlgal ballaaran oo la doonayo in lagu soo gabagabeeyo firxadka kooxaha halkaasi ku dhuumaalaysanaya ayaa ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland oo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga waxaa 48 saace lasoo dhaafay guluf military oo ballaaran oo isugu jira ciri dhul ay ku qaadeen godadii sidoo kale deegaano gabaad ay ka dhiganayeen kooxaha firxadka waxaana u suura gashay in ciidanka difaaca dowladda puntland ay dhegta dhiigga u diraan xubno badan oo ka tirsan firxadka haraadiga kooxihii halkaasi ku dhuumaalaysanayay iyagoona sidoo kale sanad military agab muhiim ah ka furtay kooxaha saraakiil u hadashay ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland ee hogaaminaysa howlgalka ka soconaya buraha calmiskaad ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey kooxaha ay dhaqdhaqaaqyo bilaabeen si markaasi loogu hortago in kooxaha ay dib isku soo abaabulaan ayaa ciidanka 48 saace lasoo dhaafay waxay qaadeen howlgal ballaaran oo isugu jira ciri dhul kaasoo lagu ciribtiraya haraadiga kooxaha halkaasi ku dhuumaalaysanaya ee doonaya inay mar kale dib isku soo abaabulaan isla markaana ay saameyn ku yeeshaan buraleyda calmiskaad ee gobolka bari saraakiishu waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen sanad military oo muhiima deegaano badan ay kooxaha ka saareen sidoo kalena weli ay ku raad joogaan haraadiga kooxaha ciidanka difaaca dowladda puntland waxa ay dhinaca kale wadooyin muhiima ay ka saareen miinooyin ay kooxaha ku aaseen ay doonayeen inay ku waxyeeleeyaan ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland waana tabarta keliya ay kooxdu leedahay marka laga hadlayo miinooyinka ay wadooyinka ku aasaan ciidanku waxay sheegeen in ku dhowaada ilaa iyo 12 miino kuwa dhulka lagu aasaa ay soo saareen halka 5 kalena ay u suuragali weyso inay soo saaraan laakiin ay goobii ay ku jireen ay ku qarxiyeen waxyeelana markaasi aysan ka soo gaarin ciidanka geesiyaasha difaaca dowlad goboleedka puntland waxay sheegeen ciidamada inay wadaan howlgal ciribtir ah isla markaana la doonayo in maalmaha soo aadan gebi ahaanba lagu soo tirtiro laguna soo gabagabeeyo jiritaanka haraadiga yar ee kooxahan doonaya inay mar kale dib isku soo abaabulaan maalmihii ugu dambeeyey deegaanka shabaab ayaa anteenadii isgaarsiinta ku taalay kooxaha firxadka waxay qabadsiiyeen deb taana waxay keentay caro xooggan oo ciidanka difaaca dowladda puntland ay ka qaadaan ficilka arxandarrada ay kooxaha si geysteen ee anteenada ku gubeen waxaana ay bilaabeen howlgal ciribtira oo ay markaasi ku qaadeen goobaha ay kooxahan ku dhuumaalaysanayeen oo muddo dheer markaasi ay ku goodoonsanayeen si gaara toga balaade ayay ciidanku markaasi cagta ku mariyeen xubno badan waxayna sheegeen inay ka saareen godadkii ugu muhiimsanaa ee kooxahan ay ku dhuumaalaysanayeen 14 xubnood ayaa wararka markaasi aynu helin ay sheegayaan in ciidamada difaaca dowladda puntland gacantooda ay ku baxeen sidoo kalena ay jiraan kuwo weli markaasi ay ku raad joogaan oo dhaawac oo ay doonayaan in markaasi ay nolol ku soo qabtaan ciidanka difaaca dowladda puntland waxay sheegeen in maalmaha soo socda war farxad leh ay maqli doonaan dhigaha shacabka dowlad goboleedka puntland kaasi oo ah in gebi ahaanba meesha laga saaray jiritaanka kooxihii dhibka ku hayay shacabka ku nool deegaanada buraleyda calmiskaad ee gobolka bari oo muddo dheer markaasi la dhibanaa tacadiye kaga imaanaya kooxan kuwaasi oo isugu jiray inay si xooga xoolahooda ugu qataan isla markaana ay dilal u geystaan guud ahaan wixii ka soo kordho howlgalka buraleyda calmiskaad ee gobolka bari wararkii